السلام عليكم. إنك تاريخ قرطو وقوات ربضا إن أي قصة أو كلا تاريخ قرطو وحيابا نادرة سأنو قلونا موقال كان وناديات كاش لايك ساب وصوبة النقصين كان نادر كان من أفريكان من لاوي ولا شيء وكوبت باني سموع جسر باني سابسان تهي قصة waxay soo bilaamatay 1990 markay ku xadgudbeen jaab agdeganaa nin lagu magacaabo Bison nin beerta Bison ka shaqaale ahaa xadgudbeen iyagoo jaarkaas ninkaas wacyo halis ah u sababay wixiisa u istaagi waayo maalin maalmaha ka mid ah Bison caawinaya shaqaalihiisii dhaawacmay gurigiisa siiyo ayaa waxaa ku dhacay wax uusan filayn noloshiisa dhinaca kale u rogtay isagoo ninkii shaqaale ahaa mar dhulka ku dhacay una dhaaftay sidaasna waxay eedeymuhu fuuleen Bison si dhaqso ahna waxay maxkamaddu u dhufatay xukun dalaad ah qof kasta oo goobjoog ahaana la yaabay xukunkaas in mucjiso ayaa soo socotay maalintii xukunka la fulinayay xanuunsaday sanaa xukun fulinta gurigaas waxaa ka keliyay xukunka fariya qadaas ama areadaas waxaana qasab noqotay dib loo dhigo iga fulinayo ciqaabta Bison markay gaadhay maalintii kale filayay fuliya maanta waxaa cudur daartay mar labaad firigii hawshaas qaban lahaa kulayl dareemaya awgeed maadaama uu maanta badan oo aad u tiro badan ugu fuliyay daldalaad ah waxaana mar labaad dib loo dhigay fulinta qaadista Bison saxaad ee la iskugu yimid inta xukunkii maqnaa isla askarigii fulinayay maalintaas dib loo dhigay mar kale waxaana dib loo dhigay ilaa laga gaarayo 1994 ilaa uu ka badbaaday kii afraad markay laaltay kii dadista dowladda Malawi iyadoona u bedeshay xabsi wuxuu galay jeelkii Bison isagoo meeyada cumrigiisa ku jira u maro habta madiga ah booskii dalista wuxuuna ku qaadan jiray waqtigiisa oo dhan isagoo ku biiray waxbarasho si uu xirfad u korarsado sanadkii 2015 maxkamaddu dib u furtay kii Bison iyagoo baaris sameynaya xaqiijiyaan kiiskiisa soo baxday uusan mas'uul ka ahayn dilkaas ee uu ahaa shil wuxuu jeelka ka soo baxay 24 sano oo dulmi ah kadib wuxuuna ku jawaabay markii la weydiiyay qisadiisa waan hubay in uusan ilaahay joojin doonin kasoo qaad daawade dad booskiisa ku jiri lahayd maxaad samayn lahayd channelka dad ku cusub tahay subscribe saar videogana like saar noyo videoga